Saldhigga Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaa lagu xidhay wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Saciid Cali Xasan oo ku magac dheer Haykal, kaasi oo ka mid ah dhalinyarada caanka ka ah barta TikTok-ga. Wiilkan ayaa lagu xukumay 18 bilood oo xadhig ah kadib markii lagu eedeeyay inuu meel fagaare ah ka aflagaadeeyay rasuulkeena Maxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Haykal ayaa caan ka ah baraha bulshada gaar ahaan TikTok-ga. dowladda Somalilan ayaa digniin u dirtay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee siyaabaha qaldan u adeegsada baraha bulshada, iyagoo sheegay in dabagal ay ku sameyn doonaan dhacdooyinka noocan oo kale. Dhowaanahan baraha bulshada waxaa aada ugu soo badanaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida aan gambashada lahayn ugu jeesjeesayo arrimaha diinta, taasoo culimaa diinka iyo dadka muxsiniinta ay caraweyn ka muujiyeen kuna tilmaameen mid ka mid a gafafkii ugu waaweynaa ee abid oo qof muslimnimo sheeganayo uu ku kaco. dhacdadan ayaa ah mid ka cariisisay kumanaan kun oo muslimiin ah, kuwaasi oo siyaabo kala duwan uga falceliyey. arrintan ayaa waxay ahayd mid 4 bilood ka hor shaqsigan baraha bulshada caanka ka ah uu ku kacay, islamarkaana meel fagaaraha uu ka jeediyey. Saciid ayaa caan ka ah baraha bulshada, waa sawir qaade, sidoo kale waa dhalinyarada loo yaqaano moodeelka. hase haatee Saciid ayaa lagu tilmaamay in uu yahay shaqsi dhibaato aada u weyn u horseeday arrimo badan oo diinta, islamarkaana qaladaad weyn ku kacay. inkastoo dad badan ay ku kala aragti duwanaadeen xukunka xariga 18 bilood ama sanadka iyo barka ee markaasi lagu xukumay shaqsigan caanka ka ah baraha bulshada, ayaa haddana sharci weliba oo diini ah waxaa lagu dabaqaa xaaladda uu ku yimid. qaar ka mid a dadka baraha bulshada isticmaalo ayaa arrinkan ka falceliyey, halka qaar iyaga ka mid ah ay soo dhoweeyeen, qaarna ay caro ka muujiyeen xarigaas, islamarkaana ay sheegeen in uu mudnaa in gebi ahaanba la khaarijiyo oo qudha laga jaro. haddaba bini aadanka naf iyo shaydaan ayaa ku xidhiidha, fal aad u xun ayuu sameeyey. hase yeeshee qofka suubanaha, nabadgelyo naxariis dushiisa ha ahaatee, u gafaya aqoon yari ayaa u geen kartaa, lama oran karo, iyo iimaan la-aan. haddana dadka ayaa waxa ay aaminsan yihiin in qofkaasi uu yahay mid tiirka hore laga geeyo, islamarkaana xaal kale aanu jirin. qofka dhalinyarada ahi waa uu gafi karaa bay leeyihiin, halka qaar kale ay leeyihiin qofka bini aadankahi gafafkiisu waa ay badan yihiin, si fudud ayuu qof weliba u gafi karaa. waa in qofka loo nasteexeeya sanadka iyo barka uu xariga ku jiro. waxaa macquul ah inuu wax badan ka fahmo diinta iyo inuu garto halista uu ku sugnaa, balse haddii uu soo celiyo mar kale dhaqankaasi, isagoo xabsigaasi soo maray, qaladka weyna galay, islamarkaana la waaniyey, taasi waxaa la oran karaa waxaa lagu fulin karaa xukunkii weynaa ee dilka ahaa. caadiyan qaar ka mid a dadka baraha bulshada isticmaalo ayaa iyagu la foguraya arrintan. dhab ahaantii waxay tani tusmeynaysaa in aan lagu dhaqmaynin sharciga bay leeyihiin islaamka ee alle uu inoo jideeyey. waxaa xaqiiqa in musiibooyinka halkeeda ay kasii socon doonaan haddii aan laga waantoobin khilaafka la khilaafayo shareecada islaamka, oo ah in ninkaasi uu si dirqiya u badbaado sida ay dadku u arkaan. haddaba waxay leeyihiin xabsi wax weyn ma ahan, waxa waajiba in qofkaasi la dilo, waayo isagu waxa uu afka la galay xabiibkeena, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxaanay leeyihiin diinta qofka marka uu yahay qof muslim sheeganayo, waxaa mamnuuc ka ah in uu isagu falcaynkaas oo kale ku kaco. dadka ayaa isku raacaya aragtidooda. hase yeeshee haddana dowladda Somalilan ayaa waxa ay soo jeedisay go-aankaasi ah xariga shaqsigaasi imika lagu xukumay 1 sano iyo barka. arrintan ayaa wadada u furaysa qaar ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaalo, kuwaasoo intooda badanna waayadan dambe habdhaqano kala gedsan lasoo baxayay, halka ay jiraan qaar badan oo diinta islaamka isaga baxay, iyadoo oo loo aaneynayo isbedelka ku yimid dhaqanka bulshada, gaar ahaana dhalinyarada qurbaha kasoo jeeda oo galaangal weyn ku yeelatay dhalinyarada gobolada ama Soomaaliya amaba deegaanada Soomaaliya ku sugan, kuwaasi oo qaarkood dhaqamada reer galbeedka qaadanaya, islamarkaana ku kacayo falal aada u foolxun. haddaba dhalinyarada baraha bulshada isticmaalto oo isugu jira kuwa wadankii hooye ku sugan iyo kuwa qurbaha kasoo jeeda, ayaa haddana waxaad moodaa waayadan dambe in xurmeyntii, ixtiraamkii, sharaftii iyo qadarintii dadku ay u muujin jireen diinta iyo culimaa diinka in halkeedii aynan taagneyn oo ay sii dabargo-eyso. haddaba
qaar ka mid ah dadka ku xeel dheer arrimaha diinta islaamka ayaa waxa ay waayadan dambe sare u wadeen ama ay si aad ah markaasi u xoojinayeen wacyigelinta diinta islamarkaana in bulshada ay u bidhaamiyaan waxyaabaha ay tahay in ay wax ku ogaadaan si qaladaad noocan oo kale ay ugu kaceen.